ilaahay wuxuu biyaha ka dhigay noolo oo idil waxaa intaa dheer in jirka bini'aadamka boqolkiiba 60 oo biyo ka samaysan yahay muhiimna u yahay shaqo kasta oo jirka ka dhacdo haddii biyaha jirka ku yaraadaan waxaa dhasho xanuuno badan oo aan la soo koobi karin hadduu fuuqbax dhacane waa halis qofku uu dhiman karo inkastoo faa'iidada laga helo cabitaanka biyaha aan la soo koobi karin waxaan isku dayaynaa in aan ka hadalno inta ugu muhiimsan biyaha wuxuu dheelitiraa dheecaanada jirka ku jira dheecaanada ugu muhiimsan jirka ee laga sameeyo biyaha waxay ka qayb qaataan dheefshiidka nuugista cunada wareega dhiiga xambaaridda walxaha nafaqada si jirka loo gaarsiiyo iyo habeynta heerkulka intaasiba waa lagama maarmaan in qofku uu helo si uu u noolaado jirka wuxuu ku dadaalaa sidii loo heli lahaa biyo ku filan sidaas awgeed eeba wuxuu maskaxda bini'aadamka ku abuuray meel loogu talagalay in ay dareento oonka sidaas awgeedna qofka ku qasabta inuu biyo si degdeg ah u raadsado si jirka hawshiisa aysan hakad u gelin waxay kaloo qaybtaas maskaxda ay kontarooshaa meelo kale oo jirka ka tirsan sida kilyaha iyadoo haddii oon yimaado kilyaha loo sheego in kaadida ay hakiso si loo badbaadiyo inta yar ee biyaha jirka ku hartay biyaha waxay ka qayb qaataan kontaroolka tamarta jirka taas oo macnaheeda ah biyaha waxay buuxiyaan caloosha iyagoo aanan jirka ku soo kordhin wax miisaan saari kara waana sababta ay dhakhaatiirtu ugala taliyaan dadka raba in ay iscateeyaan in ay badsadaan cunooyinka ku badan biyaha waxay awood siiyaan murqaha jirka unugyada murqaha waa u muhiim in ay helaan biyo ku filan si ay shaqada joogto ah u wadaan oo ah in ay jirka dhaqaajiyaan qaybihiisa kala duwan sidaas awgeed dadka cabitaanka biyaha ku yar yahay waxay dareemaan caajis tabardari iyo murqa xanuun waana sababta dadka jimicsida lagula taliyo in ay biyo ku filan cabaan oo iyagoo ooman aysan jimicsi samayn maadaama murqaha ay dhaawacmi karaan biyaha waxay quudiyaan oo nuuriyaan maqaarka jirka maqaarka wuxuu ka mid yahay meelaha ugu badan jirka oo biyaha ka faa'iideysto waana astaanta lagu garto caafimaad ahaan marka qofka uu fuqbaxo in maqaarka uu mugdi qaleel khafiif ah oo jiidmo ayuu noqdaa waxaana kaluma dhaldhalaalka biyaha waxay caawiyaan shaqada kilyaha biyaha waxay jirka ka saaraan wasaqda iyagoo kilyaha geeya waxayna ka shaqaysiiyaan qaybaha kala duwan ee kilyaha haddii qofka kilyaha ay shaqada joojiyaan waxay keenaysaa in qofka ay sunta jirkiisa ku aruurto oo ku qasbanaado in la dhaqo oo mashiino lagu xiro haddii biyo cabitaanka ku yar yihiin waxaa halis ugu jirta in kilyaha ay dhagaxaan ku subsamaan biyaha waxay hagaajiyaan shaqada madhicirada cabitaanka biyaha waxay ka hortagaan calool fadhiga saxaro adeega taasoo jirka u leh faa'iidooyin badan oo aan la soo koobi karin waxay kaloo badbaadiyaan unugyada madhicirada inuusan dhaawac gaarin intaa haddii aan kusoo gabagabeeno faa'iidada ugu badan ee biyaha laga helo waxaa muhiim ah in la ogaado cabitaanka biyaha nadiifka ah aanay beddelkeeda geli karin shaaha cabitaanka kale iyo dareerayaasha kaleba sidoo kale biyaha la cabo subaxii hore waxaa ku jira caafimaad badan Soomaalida waxaa lagu tiriyaa ummadaha aanan ku fiicnayn biyo cabitaanka maxaa yeelay badnaa marka oonna kaliya ayaan biyaha cabnaa ama in cunada lagu cuno oo kaliya aad ayayna u yartahay in aad aragtid qof isagoo aanan oomnayn biyo cabayo ku dadaal cabitaanka biyaha waa daawo aanan waxyeelo lahayn haddii jirka uu ku batana si aan dhib lahayn oo caafimaad ku jiro ayaa loo saaro oo qashinka jirka ayaa la raacsiyaa